haddii baad u cabsanaysid mustaqbalkaada dambe cabsidu way ku dilootay maxaa yeelay maanta ayayba ahayd inaad si raaxo ah u noolaatid laguma dulaysan karo haddii aadan qof bani'aadam ahba aadan waxba ka rajaynin haddii aad raadinaysid qofkii noloshaada wax ka beddeli lahaa waxaad hor istaagtaa miraayadda ku shaqayso aamusnaanta qayladaaduna ha ahaato keliya dhawaaqa guushaada shalayda laguma soo koobo keliya dhaqamadeennii qaldanaa inta badan waxaan ka shallaynaa wanaaggii aan u samaynay kuwii aanan u qalmin balse taasi sax ma ahan saaxiibbada waxaa u fiican midka kugu cabsigeliya carrada alle kuguna rajogeliya la kulanka alle iska samir maxaa yeelay laguuma imtixaamin in dhibka lagaa dulqaado mooye dhib ma lahan inaan u jihaysanno meeshii aan farxad ka helayno waxaa dhiba inaan ku sii soconno waddo ay awooddeennu ku dhiigbaxayso iyadoo aanan waddadaasi waxba aanan ka faa'iidaynin geeridu ma sugayso ilaa aad ka noqotid qof toosan adigu toosnow oo geerida sugo u samafalka labadaada waalid waa qiso aad adigu qoraysid oo ay carruurtaaduna warinayaan noloshu waa sida suuq weyn oo kale waad ku dhex wareegaysaa waxaadna ka qaadanaysaa wixii aad uga baahan tahay balse xasuusnow mar kasta in xisaabta alaabaha aad qaadatay aad bixinayso waxyaabaha aanan soo noqonaynin waxay kala yihiin hadalka markuu afka ka soo baxo wakhtigu haddii uu kaa tago iyo kalsoonidu haddii ay dhunto jaahilku ma ahan qofka aanan wax qori aqoonin waxna aqrin aqoonin jaahilku waa qofka garanaya jihada qiblada ee aanan haddana tukanaynin ha sugin qofna inuu kuu naxariisto baro in waxbixintu ay dhaqan tahay oo aysan ahayn wax kala beddelasho wax walba way isbeddelayaan marka laga reebo dadka ka run sheega dareemadooda kuwaasi marnaba isma beddelaan ha ka mid noqon kuwa dadka hantida leh u hadiyeeya dharka qaaliga ah masaakiintana siiya dharka iyaga ka dhammaaday wax ka qurux badan ma lahan inaad ka aamusid mid kaa sugaya inaad la murantid iyo inaad ku qososhid mid kaa filaya inaad ooyn doontid